إن اللي باني اللي نورين وروا لغها نسانكو fiiley axmed xasan oo ah haweeney 67 sano jir ah kana mid ah dadyooga ka soo barakacay gobolada ay abaaruhu saameeyeen ayaa in ka badan 13 bilood la xanuunsanaysa xanuun ka haleelay uur ku jirta waxay hadda ku jirtaa isbitaal ku yaala deegaanka kiiloomitir 13 ee duleedka Muqdisho xanuunkana adoo ilaw bilaad way burya ku bilaawtay burdu saan inta imaad wala khala saan baadiya la khala baadiya laga sameeyay marka baadiyadii laga sameeyay waa si halawday waa dilal marka intaan kaagna oryaal badan maal badan aniga baaday dhamaadna hoolo lo ever way korkeedana ku dhamaad hadda maanta alxamdulillah inta daruufan u keentay Dr. Cabdikaafi Maxamed Xaashi oo ah agaasimaha isbitaalka tababarka iyo daryeelka bulshada ee jaamacadda Banaadir ayaa sheegay in isbitaalkan uusan lahayn qalabka qaliinka lagu sameeyo hooyadana ay u baahan tahay qaliin degdeg ah si ay u soo bogsato runtii maamadan xanuunka hayo waxay ahayd xanuun aad u dhib badan muddo sanad iyo bil xanuunka hayo baadiya iyadoo joogta waxa lagu sameeyay qaliin waxa lagu sameeyay traditional micnaha lagu sameeyay kadib qaliinkaas waxaa suurto gashay nasiib darro in oo aad mataqaanaa ugu dhibaatooto oo xanuunka mataqaanaa oo noqdo xanuun oo waxba aan laga qaban karin waana loo keenay nasiib wanaag hadda muddo waxaa haynaa 2 isbuuc ah 2 isbuuc annaga waxaa sameynayna si waa caawinayna xoogaa xanuunada hayo badan iyo mataqaanaa waxaa sameynayna qaab caawinaha kaliya laakiin wax u baneed waxay ahayd daaweyn macna qaliin u baahnayd arrinkan waxa uu walwalka ku badinaya hooyo fiiley oo hantidii ay lahayd ee abaaruhu saameeyeen xaashi cumar xasan oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo in ka badan 18 sano ku xirnaa dalka Talyaaniga ayaa markii ugu horeysay u danqaday hooyadan isagoo oo ku sugan magaalada Badavo xaashi waxa uu soo diray hooyadan 400 oo lacagta Mareykanka ah qiimahaas oo ah mid ku jaango'an lacagaha ay sheegeen dhaqaatiirta si loogu fududeeyo qaliinka hooyadan isbitaalka waxaan ku soo booqanay maanta maamo Soomaaliyeed oo muddo 13 bilood ah ka saxaroonaysay feeraha runtii aniga waxa isoo wakiishay walaalkay saaxiibkay Xaashi Cumar Xasan oo muddo 20 sano xabsi ku jiro Xaashiya ka arkay TV-ga aniga isoo wakiishay isoo diibay lacagtii maamada lagu daaweey lahay isbitaalka saakeeto waxaan imaanay isbitaalka maamadina waa la kulanay lacagtii oo isoo wakiishay Xaashi Cumar Xasan ayaan waxaan rabaa in aan ku wareejiyo maamulka isbitaalka si maamada loola tacaalo caafimaadkeedana wax looga qabto Aweys Maxamuud Dulcawaartiyaan Muqdisho